runtii shirkadaha muxuu ahaa small and medium enterprise sizesku door muhiim ah ayay ka ciyaaraan markay noqoto renewable energy-ga waddankeena. Sidaan ogsoonahay runtii waxaa jira gaab badan oo ka Soomaaliland ahaan inaga haysta dhanka energy-ga. Marka inta badan shirkadahaas waxay sameeyaan in ay gaabkaas daboolaan. Sidaan ogsoonahay boqolkiiba 70 dadka reer miyiga ah way ku adag tahay in ay helaan energy ama tamar. taasna runtii laba shay baa keenay. Labada shayna waxa weeyaan in ay runtii kompaniyada inta badan supply gareeya energy-ga inta badan waxay ka howlgalaan waa magaalooyinka waaweyn. Aad bay ugu adag tahay tuulooyinka kale inay gaaraan. marka reasonka labaad ay dadkaasi u helin tamarna waxa weeyaan tamartiyo qaaliya. marka runtii shirkadahaas waxay isku dayaan in ay gaabkaas daboolaan iyagoo siinaya dadkii system yar oo ka qiimo yar iyo sidoo kale faa'iido badan u haya oo qofkii uu afford garan karo oo iibsan karo. runtii systemyo badan baa jira. qaabka labaad ay uga qayb qaataan shirkadahaasi waxa weeyaan in ay sameeyaan creating job iyo sidoo kale in muxuu ahaa ay local economy-ga ka qayb qaataan. runtii anaga ka Soomaaliland ahaan waxaa jirta dhibaatooyin dhanka shaqaalaha ah. fiilka renewable energy-guna markuu soo kordhay waxa uu la soo kordhay isaga laftirkiisa shaqooyin badan. shaqooyinkaas runtii ay dhalinyartu ka faa'iideysan karto maxaa dhaqaale fiican laga heli karo economy-ga caawin kara. iyo sidoo kale runtii in ay muxuu ahaa la heli karo dad muxuu ahaa boqolkiiba boqol fulin karo. runtii ka shirkad ahaan anaga 10 sano ka hor way adkayd in la helo dad reer Somaliland oo u dhashay waddankii oo fulin kara mashruuc. inta badan waxay ka iman jireen waddanka Jaarkana Soomaaliya iyo Kenya ka iman jireen. runtii anaga ka shirkad ahaan program baa nooga deganaa in aan each engineer ama technician aan ku xidhno 5 qof taas oo ay ka daba baran karaan kadibna loo heli karo. maanta intuu doonaha la ekaado mashruuc laakiin waa la heli karaa maxaa muwaadiniin reer Somaliland oo fulin kara maxaa mashaariicda noocaas oo kale. runtii inaan ku dheeraado ma rabo hal qodob baan ku dari lahaa. runtii saan ogsoonahay adduunku wuxuu u guurayaa imika inuu helo tamar la isku halayn karo. taasna runtii innaguna maaha inaan tartanka ka hadhno. marka shirkadaha inta badan waxay ku dadaalaan inay secure ka dhigaan energy-ga wadamada. marka ka shirkad ahaan shirkadahaasi way ka qayb qaataan inuu energy-ga inuu noqdo secure kaasoo runtii inta ugu badan boqolkiiba 95 tamarta ay helaan reer Somaliland waxay ku xidhan tahay waa shidaalka laga dhalinayo. taasna runtii wadamadii qaniga ahaa waxaad arkaysaa ee shidaalku ka buuxay in ay iyagu laftarkoodu isku halayn kareen. marka taasna waxay caddaynaysaa in innaga laftarkeena oo inoo imaado mararka qaar waan aragnaa inuu qiimihiisu kor u kaco dhibaatooyin fudfudud oo sida inay xidhmatay badiyo kale ama dhibaatooyin yar oo fudfud. marka runtii haddaad tamarta renewable energy-ga haysatid waa wax aad adu maamulan kartid jeebkaaga kuugu jirta wax aad sugaysid ma. soo markaa shirkad waxay ka qayb qaataan in ay secure ka dhigaan oo tamarta la isku halayn karo loo wada guuri karo. marka saddexda qodob baan kusoo koobi lahaa. qaybo badanna way ka qayb qaataan maxaa shirkaduhu renewable energy-ga. aad baa mahadsantihiin.